بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلام وأنا محمد شيخ عبد الله وما كان idinku soo gudbin doonaa cashar aad u muhiim u ah. casharkaasoo ka hadli doonaa sidee loo sameeyaa journal ledger adigoo isticmaalaya excel. si aad u sameyso fast waxaa imaan doontaa selkan, dan waxaa ku qori doontaa companygaaga magaciisa. so aniga companygayga waa Mohan company, adigu kaaga ku qoro Mohan company. dan markaa qorto kadib waxaad garan doontaa ilaa intaad u baahan tahay. waxaad dhihi doontaa merge center, dan farta ii weyne waxay ii dhigtaa Algeria. dan halkaan imaaw waxaad ku qoraysaa waxa aad rabto inaad diyaariso waa maxay. waa journal ledger. so halkaan igu qor marka. markaa qorto kadib waxaad garee ilaa intaad rabto merge center leh, dan farta iweyne bold ka dhig. so tan iga dhig. so journal ledger wuxuu ku koobnaa waxay ahayd account, debit, credit, balance. so account goodka aan ku qoray waa weynaysanaa. dan kadib highlight garee, dan waxaa lahada bold iga dhig, dan farta iyo weynee. so markaa iweynaysa kadib kan iga dhig oo kale. so halkaan naftigeed iweynee, dan waxaa dhahdaa color igu yeel. so color aa u yeel soo ma jeed. so color markaa weys kadib highlight garee ilaa intaad u baahan tahay. waxaa dhahdaa border igu samey. waxay imaan doontaa all borders, waxaa kasii dooran doontaa all border. so ujeedaa sooma. so halkaan waxaa ku qori doontaa accountnada u baahan tahay oo dhan. halkaana waxaa kugu qorbi doona debit, accountkaasi debitkiisa. creditkan waxaa kugu qori doona accountnada dhan creditkooda. balancega wuxuu noqon doonaa debitkii iyo creditkii oo la kala jaray. okay, waxaa kaloo xigi doonaa maadaama aan u baahnayn salalkan kale, waxaan sameyn doonaa waan iska qarin doonaa. so waxaan dhihi doonaa selkani keen, dan waxaa dhahdaa control shift right arrow click. dan markii waxaan ku yimaadaan oo falaartaasi kor hoos u socota ee kusoo muuqato, waxaad dhihi doontaa right click, dan waxaad dhihi doontaa hide. so waa ujeedaa sooma. so iweyne. so company magaciisa waa kana. waxaan sameynaya waa journal ledger. so accountnada halkaan ayaan ku qoran doonaa. debitki waa kana, creditki waa kana, balancegi waa kana. so aad ay u fududahay in la sameeyaa journal ledger. waxaan idinkaga tegayaa sidaasi nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.